xidho mabaadiida qofku ay tahay inuu nolosha ugu safro iyo waayaha shaqeeda ee gaarka aan soo maray anigoo tusaaleel ka soo qaadanaya waayaha shaqeeda aan soo maray mabda koowaad ee doonaya inaan halkan kaga hadlayo waxa weeyaan khibradu nolosha way kula safartaa laakiin lacagtu kula ma safarto markaan leeyahay khibradu nolosha way kula safartaa waxaan ka wadaa qofka dhalinyarada imika markuu jaacad ka soo baxo waxa ugu horeeya ka hor imanaya waxa weeyaan khibrad ma leedahay hadaba qofku sidoo khibrad u heli kara sida ugu fudud khibradu qofku ku heli kara waa inuu ku shaqeeyo mutadawacnimo tag goobta waxa weeyaan deegaanka shaqo aad u baahan tahay haddaad engineering ahayd tusaalahaan oo kale deegaanka engineeringa kadib waxaad ku tiraahdaa waxaan u baahanahay inaan ku shaqeeyo bilaash cidna ka diidi mayso taasi waxay ku sahlaysaa inaad hesho ama aad barato dad badan oo shaqadaada la xiriira aad si fududna ku heli kartaa shaqo oo uga fursad badnaan karto qofka banaanka ka jooga isagu CV kaliya la wareegaya markaad shaqo khibrada noocaas hesho khibrad kasto aad barataa waxay ku siinaysaa xirfad cusub aad baratay xirfadahaasi nolosha markaynu ka hadlayno inaad lacag badan ku shaqeyso oo waxa weyn meelo kooban ka shaqeyso iyo inaad lacag yar ku shaqeyso oo khibrado badan iyo xirfado badan aad hesho hadhow toole lacagtaasi way ka dhamaan kartaa si fudud bay ku bixi kartaa laakiin khibradu qofka way raacaysaa meel kasto aad tagto ka harimayso markaas aad khibrad u hesho waa inaad mutadawacnimo ku shaqeysaa markaad mutadawacnimo ku shaqeyso dad baad baranaysaa xirfad cusubna ood baranaysaa oo nolosha ku sahli karta tusaale ahaan oo kale waqtiyada kamidaba mudalab baan ahaa waiter anigoo waiter baan waiternimadii ka tagay mudalabnimadii hudaalkii kadib hal sano baan waxaan mutadawacnimo kaga shaqeeyay macalinimo isla dugsiga aan ka soo baxay kadib labadaba waan ka tagay waxaan xereeyay CV macalinimo iyo mudalabnimadii iyo mid ganacsiga saddexdii shaqo hal mar bay soo wada baxeen waxaan doortay laba kamid ah ganacsiga yaraa inaan bilaabo iyo inaan macalinimadii ka shaqeeyo waiternimadii inaan iska ilaawo taas waxay muujinaysaa fursad haddaad doonayso shaqo oo badan khibrad badan waa inaad yeelato khibrada badanna shaqo badan bay ku xirfad badan bay ku siinaysaa mar haddaad heshay khibrad badan maxaad u baahan tahay ma inaad isku ilowdo shaqaalanimadaad u baahan tahay mise inaad ka tagto mabda'an labaad wuxuu sheegayaa lacagtaadu ha dhamaato naftaada ama caafimaadkaaga ka hor laakiin caafimaadkaagu yaanu dhamaan lacagtaada ama naftaada ka hor markaan leeyahay lacagtaadu ha dhamaato caafimaadkaaga ka hor tusaale fudud baan kuu soo qaadanaya qofku markuu shaqaalaha yahay wuxuu bixiyaa waqti badan iyo sidoo kale naftiisa oo wada socda waxa laga yaabaa inuu ku daalo shaqada waxa laga yaabaa inuu ku dhafro waxa laga yaabaa inuu stress ka qaado kadib uu lacag kooban qaata taas waxay muujinaysaa markaa naftiisa baa dhamaanaysa lacagtiisa ka hor tusaale fudud hadaan soo qaato waxaan ka shaqeyn jiray suuqa shiraaqle meelaha jumladlayaasha markaan ka shaqeynaya meelaha jumladlayaasha xilli rabadaan baan waliba ka shaqeyn jiray waxa dhici jirtay 25 ka rabadaan ilaa 29 ka rabadaan inaan labada habeenimo ka soo rooxa meesha haddana salaatuleelka aan tukado marka salaatuleelka tukado kadib suxuurtii baa imanaysa suxuurtii kadibna waa salaadii subax kadibna shaqadii baa lagu noqonaya 4 cisho oo kamida ayaan sidaa ku soo jeeday maalinkii shanaad ayaa waxa dhacday in masaajidkii intaan salaadii la gaarinay sugayay baan seexday culimadii baa kicisay anigoon arkayma waxa weyn ka tagay waan ka safray masaajid kale aan tagay jaamac ka horna seexday calimataan buu ahaa jaamac aan tagay jaamaci baa hadana la ikiciyay subax xilli ay 7 subaxnimo tahay uma waxaan ku war helay ninba waxa weyn saa yara dhirbaaxay kadib waan soo baraarugay meeshan jooga waa gidaar xamaam waliba halkan aan ku tiirsanahay ma jiifo anigoo tiirsan ma waxa weyn gidaarkiisa ugu tiirsanahay kuna seexday wuxuu ku xillimaad halkan seexatay daanu masaajid hurda igu dambeysay xilli aan halkan mid isma garanay baan ku ri alaaban sitay saasoo kale way iga halowday taasi maxay muujinaysaa naftaydii baa dhamaatay waxa weeyaan lacagtaydii ka hor mushaar yar baan qaatay iyadoo naftaydu dhamaatay mabda'an guud ahaan wuxuu isugu soo ururayaa qofku inaan nolosha shaqaalanimada isku ilaawin maadaama fursadaha shaqo ay yar yihiin waa in shaqo abuur badan la helo oo mabda'a saddexaad uu ka hadli doono marka haddaad doonayso waxa weeyaan noloshaada inaad guul gaadho inaad ku kifaaxdo inaad waxa weeyaan si aad u noolaato waxa weeyaan ka duwan dadka kale ha isku ilaawin nolosha shaqaalanimada waa inaad heshaa ugu yaraan meel yar oo kooban oo xorriyad maaliyadeed oo madax bannaan ay ka soo gasho okay waxaynu ogaanay inaynu helno khibrad sidoo kale waxaynu ogaanay mar haddaynu khibrad helayno shaqooyin badan helayno inaynaan isku ilaawin nolosha shaqaalanimada mabda'an saddexaad wuxuu ka warramayaa
lacag la'aan baa lacag dhasha buu ku leeyahay lacag la'aan baa inta badan bulshadeena waxa ku faafay caado ama dhaqan ah lacag baa lacag dhasha qof dhalinyaradii haddaad ku tiraahdo jaamacadaha ka soo baxay ee kumanaanka ee gidaarada fadhiya haddaad ku tiraahdo waxa weeyaan maxaad adiga laftarkaagu shaqo u abuuri weyday halka aad inaad cid u shaqayso un ka sugayso wuxuu qoranayaa lacag baa lacag dhasha ma lacag baan haystaa haddaba mabda'ani wuxuu burinayaa oo meesha ka saaraya odhanaysa lacag baa lacag dhasha wuxuu ku leeyahay lacag la'aan baa lacag dhasha maadaama doonaysa inaad xorriyad maaliyadeed hesho waa in waxa weeyaan aad abuurato ganacsi madax bannaan oo adiga laftarkaagu aad shaqo abuur ka qayb qaadan karto maadaama aad kaa u baahan tahayna lacag la'aan baa lacag dhasha waa inaad adeegsan karto mabda'a la tusaale fudud haddaan soo qaato anigu waxaan aasaasay ganacsiyo yaryar oo badan laakiin ka ugu fudud waxaan soo qaadanayaa lacag la'aan baa lacag dhasha mabda'an qaadan kara waxay afakaadhada baasha la yiraahdo ayaan $20 anigoo haysta waxaan isku dayay inaan u diro waxa weyn Ethiopia kadib afakaadhada sharaabka la shiidaa la iga soo diro markii koowaad dhamaantii wuu xumaaday 20 kiilo bay soo geysay $20 dhamaan wuu xumaaday markii labaad lacag baan soo amaahday ma niyad jabin anigu aaminsan in lacag dhali karto $50 baan soo amaahday $50 baan deetana ku diray $30 baa iga soo noqday hadana ma niyad jabin $30 baan isku dayay inaan dib ugu diri karo kadib waxaan raadiyay xalka sababta ay waxa weeyaan u xumaanayso ama waxa weeyaan ay inta leeg u khasaarayso waxaan ogaaday inaanay qabowga xamilin sidoo kale waxaan ogaaday waxa weeyaan inay u baahan tahay meel degdeg oo lagu shiido waxaan sameeyay meel degdeg oo lagu shiido anigoo u qaybinaya hudheeladana bishii waxa ka soo bixi jirtay waxa $20 aan ku bilaabay waliba 20kiina ay khasaareen hadana ku niyad sama $900 iyadoo ka soo baxdo ayaa meheradii waxa weeyaan ay waxa weeyaan ay shaqaynaysay marka mabda'aas muxuu ku tusayaa lacag la'aan baa lacag dhali karta niyadda aad hayso un bay ku xiran tahay inaad abuuri karto shaqo You